صاصع يا رمضان ولقوا سقاي يا رمضان. صاصع يا رمضان ولقوا سقاي يا رمضان. مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان. مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان. صلاة قيامك سجود الله بشي صدقاتك يا رمضان. صلاة قيامك سجود الله بشي صدقاتك يا رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، والصلاة والسلام على سيد البشر الشفيع المشفع في المحشر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد أيها الأحبة في الله، ملكستو aad joogtaan ba assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh. kusoo dhowaada barnaamijkeennii daawada soonka. xalqadani waa midii sagaalaad, waxaana biidni illaahi ilbaari jalla fii culaah aynu ku eegi doonaa mustaxabbaatu siyaam, waxyaabaha sunnada ah ee sharcigu uu jeclaystay ee laga doonayo qofka saa'imka ah. wax walba aadaabta iyo qaabka loo sameeyo ayay darajadoodu ku xidhan tahay. dadkuna iyagoo wada sooman bayna isku ajir ahayn. laba qof oo labadaba isku meel joogta oo isku xilli soomay, isku xillina afuray ayaan isku ajir ahayn. oo ajir badnidu xaggay ka timid? ajir yaraantuse maxaa ugu wacan? waa ikhlaaska iyo niyada iyo hadba siday ugu dadaalaan acmaasha soonka bilaysa ee qurxinaysa ee thawaabka iyo darajaadka u siyaadinaysa, hadba siday ugu dadaalaan weeye. qofka saa'imka ah haddii arrimahan soo socdo uu ilaaliyo, soonkiisu waa soon uu ajir badan idanka ilaahay uu ka helayo. si ajir badan aad u hesho, akhi saa'im, ukhti alfaadila, ku dadaal mustaxabbaadkan iyo sunnooyinkan qiimaha badan ee aan kuu sheegi doono. sunnada koowaad waxaa weeye assuxuuru wa ta'khiiruhaa. qofka inuu suxuurto oo uu weliba suxuurta dib dhigo 10 daqiiqo ka hor, 20 daqiiqo ka hor, rubac saac ka hor fajarka in uu suxuurto weeye. ha isdhihin hadhow baan intaana seexanin baan intaan suxuurta ayaan iska seexanaya, hadhow ma toosi karaa. ha isdhihin, sunno weeye, ajir fara badan baad ka helaysaa. suxuurtu waa baraka. suxuurtu waxaa la ogaaday in ay jirka caafimaad u tahay. suxuurtaasi marka waa sunna, dibdhigitaankeeduna waa sunno kale. sunnada labaad ee qofka sooman laga doonaya waxaa weeye tacjiilu lfitri, inuu afurka dadajiyo oo uusan isdhin hadhow waa iscaataynaya ama hadhow maaragtay howl yar baan soo qabsanaya. qofka inuu afurka dadajiyo bixaddi daatiha waa cibaada. waa cibaada. marka cibaadada inuu ku dadaalo oo marka haddii uu arko qoraxdiioo dhacdayna uu durbo afuro. haddii wadamadan aan qorax la arkaynin uu joogana, in timetableka iyo xilliga warqadaha lagu afuro ku qoran marka ay gaadho markiiba, ama hadda adduunyada teknolojiyadii mobaylo iyo wax walbaa lagu haystaa. saacadihii dhawaaqayay ee sheegayay in xilliga la gaadhay, maqribka markii sidaa loo gaadhaba inuu qofka afurka dadajiyo waa sunno. nabigana wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam, ummadaydu khayr ka zuuli mayso inta ay suxuurtana dib dhigaysa, afurkana ay dadajinaysa ayuu yidhi sala allahu calayhi wasalam. sunnada saddexaad ee soonka waxaa weeye aliftaaru calaa rutabaatin, in timirta weliba qoyan ee caloosha u fiican ee enerjiga markiiba soo celinaysa, oonkana bi'inaysa, in lagu afuro. weliba tiro isdheer 3, 5, 7 wahaakada in lagu afurona waxa weeye waa sunno. qofkii aan heli karinna inuu biyo ku afuro, qofkii aan heli karinna markaasi dee waxaa weeye walaa yukalifu llahu nafsan ilaa wascahaa.
laakiin in timir lagu afuro waa sunno weeye. sunnada afraad waxaa weeye adducaau cinda alfitri, qofka markuu afuraya agteeda inuu ducaysto, iyo wa athnaa'a asiyaam, inta uu sooman yahayba, oo marka uu afurayo inuu yidhaahdo dahaba aldama'u wabtallat alcuruuq wa habata alajru in sha allah, inuu yidhaahdo ducada akhriyo iyo ducooyin kale la midka ah waa sunno. fii athnaa'i siyaamna qofka markuu sooman yahay ducadiisa laa turad, ducooyinka aan la celinin ee markiiba ilaahay uu aqbala ayay ka mid tahay inuu qofka ducaysto, ducadana uu ku dadaalo. adducaau huwa alcibaada ayuu yidhi nabigu sala allahu calayhi wasalam xadiidkii waxaa weeye nucmaan ibnu bashiir radia allahu canhuma wa ardaah. waxaa kaloo ka mid ah soonka sunankiisa ka mid ah alikhaaru min alsadaqati wa tilaawati alqur'an wa taftiiru alsaa'imiin, in sadaqada la badiyo. dadka qaar waxaa jira maa sha allah si wanaagsan u fahansan cibaadada oo maalin walba oo ramadaana wax sadaqaysa ayaa jira. qofkii heli kara sadaqada marka in lagu dadaalo, oo sadaqada fii ramadaan waxaa weeye waxay u dhigantaa sadaqaad aada u fara badan ayay u dhigantaa. faradka ramadaanka la gutana intaasoo farad buu u dhikamaa. qur-aanka oo la akhriyana dee qur-aanku waaba bisha ramadaan, waa bishiisii soo ma aha, calaaqa ka dhexaysa sidaan soo marnay, shahru ramadaan aladii unzila fiihi alqur'aan. waxaa kaloo sunno ah dadka aan waxaysanin ee saboolka ah een wax heli karin in la afuriyo, oo ama aada gurigaada ugu yeedho ama haddii kale aada waxay ku afuraan aada siiso. waddamadaas kale ee muslimiinta ayaa runtii aad iyo aad arrinkaas inooga fiican. qofku way adag tahay inuu keligii afuro, cuntadii buu soo qaadanayaa, dad waxaad arkaysaa cuntooyinkii masaajidda la hortaagan. marka arrintaasi waa arrin aada u fiican, inaadan dhihin qofkan waxbuu haystaa hadhow buu gurigiisa ka afuriye, laakiin haddaad intaad tamir yar soo qaadda aad qof sooman aad siiso, iftaaru asaa'im waa sunna mahjuura, sunno laga tegay weeye. darajaad sare ayaadna ku helaysaa biidni illaahi tabaaraka wa tacaala. waxaa kaloo sunnada ka mid a soonka ama qofka sooman loo sunneeyo alijtihaadu fi salaati alleyl, salaada loo yaqaano qiyaamuleylka iyo taraawiixda, inuu qofka uu ku dadaalo. nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam man qaama fi ramadaan iimaanan waxtisaaban gufira lahu ma taqadama min danbi. qofkii marka salaatuleylka ku dadaalo ajir fara badan ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu siinaya. waxaa kaloo ka mid a in la cimraysto, oo cumratun fii ramadaan waa nabiga adigoo la soo xajiyey bay la mid tahay. inaad marka cumrada ku dadaasho ayadana qofkii heli kara sunno waxaa weeye aada u qiimo badan. sunnooyinka qofka sooman laga doonayo waxaa ka mid ah qof hadduu ku maaragtay aflagaadeeyo ama ku maago, in aadan la tirsanin una jawaabin lana caytamin ee aad tidhaahdo innii saa'imun, waan soomanah inaad tidhaahdo. waxaan ku xijinaynaa ayuha alaxibatu fillaah makruuhaat siyaam. qofka sooman waxyaabaha sharcigu uu kahday ee inuu ka dheeraado la doonayo waxaa ka mid ah almubaalagatu fi lmadmadati walistinshaaq, inuu qofku ku xeel dheeraado luqluqashada iyo sandaarsiga. asal ahaan in lagu xeel dheeraado weeye, ilaa qofka inuu sooman yahay ma ogiye, marka arrinkaasi luqluqashadana dee waxaa laga baqayaa markaad biyihii afka aad ku xeel dheeraato in ay biyihii gudaha ay galaanoo uu soonka uu kaa jabo. waxaa kale oo la kohdo sharcigu uu kohday alqublatu liman tuxariku shahwata, dhunkashada iyo taataabashada iyo agfariisiga labada qof ee isqabta, qofkii ay shahwadiisu dhaqaaqayso. maxaa yeeley waxaa laga hortegaya alwiqaayatu khayru min alcilaaj, ka hortagu wuu fiican yahay. waxaa laga hortegayaa inay qofkaasi shahwadiisa kacdo oo markaasi fii nahaari ramadaan uu xaaskiisi uu ku dhaco. marka dadka ay shahwadoodu kacaysa waxaa la yidhi qublada iyo dhunkashada iyo waxaasi ha ka dheeraadeen. balcu nuqaama, inuu qofku intuu candhuufta aruuriya cazakum ullah uu laqana, iyadana waxaa weeye waa karaahiye weeye. waxaa kaloo karaahiye ah
oo sharcigu uu kohday dhawqu طacmin ligayri alxaajati in uu cunto dhadhamiyo dan la-aan. asalku marka qofku uu wax karinayo oo uu jikada ku jiro cuntadii inuu dhadhamiyo haddana uu iska tufo way u bannaan tahay, laakiin adiga oo aanan cuntona karinaynin dan kale iyo ujeedo kalena aan ka lahayn inaad maanta o dhan cunto iska dhadhamiso waa karaahiyo weeye. maxaa yeele waxaa laga baqayaa inay markaa cuntadii ay gudaha gasho ayaa laga baqayaa. intaasina waa makruuhaadkii ama waxyaabihii uu sharcigu kohday ee qofka saa'imka ah laga doonayo in uu ka fogaado. kuwii horena waxay ahaayeen mustaxabaatu الصائم أما مستحبات الصيام أيها الأحبة في الله. halkaa waxaa ku dhammaaday xalqadii sagaalaad. inta aynu oga kulmi doono ama isaga imaan doono xalqada tobnaad ee barnaamijkeena daawada ramadaanka waxaan idinkaga tegayaa fii xifdi illaahi iyo waricaayati. wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين رمضان قد أهل بالصيام.